ma way dhamaatay ina ala ka cabsanaysid qofkan bil aadanka kale ha isdhiyaysid ileen waa lagu tumanaaba sharaftaada dhulka lalgala anna waan ka soo horjeeda ina sharafteeda dhulka aan gasho ogo waan ku digayaa habartii ku dhashay ninkan aan kala tagnay habartii dhashay haduu fiidiyowgan ku soo gaaro adaa biri kor u ooyi doonee wiila wax liiga yeela dhihi doontaay hadda wad iga celin laadahay hadda wad cishaani inaan dhinta diyaaran buu ahay baadu iga daba heri waayo diyaaran u ahay in aan dhinto asina laakiin halkaas inaan mindi ka gelinayo halkaas mujeeda inaan mindi ka gelinayo hadda iga la harweysan wiilkiina oo iga leexan waayo ummadda islaamka banaanka kala martaa oo banaanka iga mar waayo halkaas ma aragtaa mindi ka gelina dhiigiisa baxay wuu u dhiman in uu amaanti isiyo aaroon dadka lacagaha dhiibooyinna lacagta waa niga dhamaanaysaa lee marka horta Soomaali waxa weeye intaan sheegay intaas waaye teeda kale adduunkan qofka xoog badan ma lahan wax dhan oo u socotan waxa waaye in aniga sharafteeda dhulka wajaxyo leefkeygana waa daawanayso hadda iga harweysidaan ku dhahay iga harweysid habkaas mindi ka gelina rajactuntaada was eeyo kala jiran in nabadgeli daamsun tahay ma hadda kartid afkiga ana iskale wan hadla way afkaleega qabana ina aanu ogeyn askar guriga leekan ani aabihii nala kaxee saldhigna lagii wayga ku baneys xeete Muqdisho wallahi oo bilaah oo talaahi sida daacad laaga shaqeeyo qofka markuu soo dacwoodo saldhiga tago waxa laga rabaa qofka inuu soo waco dhaho saldhiga la soo dacweystay meel saldhig hiblaaye imaw ma jirto adigoo ogeyn gurigaada ciidan laga soo korkeeno adoo lagu horto waxa igu dhacday Soomaali maxamedey hadii daacadnimo jirto ani gabar miskiina ahay faanteen miskiin waxa iga dhiga alle ma faanteen waayo dumarka sidooda waa miskiin ma faanteen miskiinimada waxa ii si dheer ani bil aadana ahay faanteen waxaan bil aadanimo dadnimo ku dhacsan waay oo hada xoog iyo lacag iyo qori li sheegto ilaahay aan u dacwoona qof kale aan u dacwoodo malahan oon alla ahayn Soomaali maxamed de garab isiinayso ana cadoosh habeen marabo maalin marabo woo ifuray rajacad qasabna marabi sidaan u kala tagnay wahaani dadka oo maxal dhahay lacagaha dhiibayo oo qofta sixir saw ilgo mujidin aabiya iga sii daran meel kastaan lagu gudbina saddex saldhigaan iskeen dhaafiyo halaas xoogan oo sheekana aabiheyga ani idalay ana wadoon xumo u raay wuxuu yiri gabadhaada saldhigan kaaga qaadana gabadhaada maslaxo saldhigan kaaga qaadana aabiheyba waxaa laga soo qaaday yacni qof aan waxba galin awoodeedana waa arki doontiin insha Allah haddaana kala badbaadin weysaan yaa sharci diinta islaamka wax ay qabto yaa labadii qof oo isfahmi weyso inay wadadaas cad ay kala maraan ay ku nabad galaan asna calafkiisa raasado ayadana calafeeda raasato way noqon weysay dagaalanan nala taagantiin iyo gumeesi iyo askar waalistila ma fahantiin ilaahay iguma keeno laakiin aniga waxaan ka xigaa geeri inaan dhinto yaa intii aan kugu soo noqon lahay anigoo nafta iga baxlaa ka xigaa ما فهمت
inaan adduunka ka tago aan ka xigaa intaa igu soo noqon lahayd. haddaa lii dhaho malakamoodkii nafta kaa qaadayana waa kahay, catooshkiina waa kan, labadooda mid raac. malakamoodkan niyow inabadgeli, waalidkaada waa kusoo deysteen, wax ku ceshahaya malaha. aniga hadda waxay ii taagan tahay yaa inaa iska kaa dhiciyo. hadda iga hari weysid waa iska kaa dhicinaa, ma fahanti yaa? ama anaa lii duuga, ama adaa lagu duuga, ama anaa isbitaal jiifay. fahanti rasmi nima leefkay waa daawanay duyuus kala jira. waa daawanaysaa leefkayga oo qanjaha waaweynka leefkayga waa u jeedaa. ani inaan adiga cabsanayo daciifa ha u maleynin. tixgelin aan sharci tixgelinayo yaa hadhow sharciga ku qaban aan saldhiga u taga maahina barta waa laygu dili kara gurigayga. maka baxaaya inta dhaho cid qasab igu leh malahan. ee sharciga dowladda Soomaaliya aan tixgelinayo qiimeynayo. ilaa haddan dumar oo qiimeynteedu ii garan la yihiin ayagana sisay iska daba wareejinayaan maalinba maalin inay xaqiisa nadiif igu dhiciyaan oo sida lagu kala baxo yaa rajacatuntan uu soo dhawo igala har oo banaankas iga maro way keen la yihiin. ma fahanteen? laakiinse waxa laga talinayo yaa maslaxa inay bahdilaan, yani maslaxa bahdilkeeda la rabaa. ma fahanteen? oo bulshada Soomaaliyeed si oo yani inacdo ani liima nacayo. haddaa ku dadaashaan saldhig walba in liigeeya catoosh muuqaal lasoo muuqda bis aartiin dan uu igileeya mala inaa hal muuqaal lasoo muuqdo uu dhaho anii waataashaa waa isku soo laabanay. bahdilka meesha iiga bilaabo ma dhexeys. absolent maxaa la dhahay horta aniga maxkamadda gobolka maba ila qaysa hadaa lii gudbiyo. waxaana raali ka ahayna maba ii qaadi karta dowladda Soomaaliya haddii xaq jirto oo xaq leh hadlaaya oo qof walbo lacag lasoo siiyo ani eed dush iga saareyna. haddii xaq jirto ana xaq inaa liisoo dhiciyaan u baahanahay. ani dowladda Soomaaliya maanta xaqeygaan kaga baahanahay. ma dhahay lacagaan u baahanahay, ma dhahay oo lacagtay dadkas iga cuneenaan u baahanahay, ma dhahay kaliya nabadgelyo intaan ka helo afdheerkaas uu in nabadgelyo ammaanta isii banaanka cad uu iga maro. inta kalena allaan ku daay. waxa aan ka rabo lacag ma aha, nabadgelyo inaan ka helo aan u baahanahay. haddii kale adduunkan ilaahay maxuu noo keenay labada qof oo isfahmayso inay kala dhaqaaqaan. qofkii qofka hari waayo waalidiintiisa haddii ceshan waayaan inaad shantaada iskaga reebtid. ma fahantay? ani haddaa nafsadee loo imaado nafsadee baa iska difaacaa baraada. an nafteeda badbaadsan haddaad ii imaado xitaa haddaa ku dhiman laheedaasaas waxba iigama gelin. I don't care. gurigayga haddaa dambe igu imaato meelaa taaganahayna aa soo istaagtid halkaasaa mindi kaa gelinaa. halkaas ma ujeedaa aaminti kaa gelinaa haddaa iga daba hargeyso. baryo dhan waa dhamaatay saaxiib. markaan baryo way dhamaatay. waxii baryo ahaa way dhamaadeen. aniga madaxan sis u luxanaa. waxaa madax u luxaayana adiga iga keentay. hooyada, aabbaha, walaashaa intaba yaa way ogyihiin inaa aadan i qabin. saldhigana aanu xaakiis waxaa lis dheeryahay damiirnimo iyo dadnimo. fahantiin? islaamnimada lagu sheegayo waxaa waaye inaad qofkaas nabadgeliso, dariskaada ay kaa caraaran, sadaqadaada aabadsato, soonkaada aabadsato, salaadaadana aabadsato yaa qofka isfahmi weysaane magaalada way weyn tahay aad tartiibku kala dhaqaaqdaan. ilaahay kuma dhihin ummadeyda dhib oo inta u gal oo gumeyso kuma dhihin.
aniga adoo bilaadan oo noocaas u yaalan ma gumeysan karo adoo bilaadan oo xaaro uuso ima gumeysan kartid waa lisbaluujiyaa quruxdaan iyo dhalaalkan aad arkaysidne yaa aabba waa kusoo dhabar jabay hooyaa kusoo dhabar jabtay aabaa xamaali igu soo koriyay adeer qodaxda dhadhalaaka arkaysid nama arkista absu aamus marda ima arkin anoo maxaa la dhahay laamiyada jiifo baraada oo hooyanaan aabalaan iheysa ima arkin ma garate kawaran wixii la rabaa liska sheegaa wixii la rabaa bilaadan walba wixii shutiida inaad ka qabsanaysid oo maleena iyo maalaasna